waxa hadda si toos ah qadka taleefanka ugu jira madaxa golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida injineer Maxamed Shaale. Injineer ma maqashaa? Waa ku noolaa Xamar Cabdullah. Injineer bal waxaad nooga warbixisaa shirkii maanta aad gasheen xisbiga EPRDF golihiisa dhexe ujeedooyinka looga hadlayay maxay ahayd? Waa mahadsantiin. waxaan rabaa inaan shacabka deegaanka aan la wadaagno xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan maalmahan ugu dambeysay ee ku aadan xisbigan cusub ee hadda la sameynayo. waxaa la ogsoon yahay xisbigan dimuqraadiga EPRDF sidaan shalay qoraalkeeda kula wadaagnay inay daraasad muddo badan la waday oo ku wajahnaa in la sameeyo hal xisbi oo xisbigan la mideeyo. daraasadda waan deegaankeena xubnaha guddiga fulinta iyo hogaaminta sare gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga iyo gudoomiyaha guddiga fulinta daraasaadkii midowga waa loo soo bandhigay. waxaa loo soo jeedinaya waxaa weeye in la mideeyo muhiimadda ay leedahay in hal xisbi la sameeyo. taariikhaan waddankan soddonka sane Steve la soo dhaafay hal xisbi oo jabhadda oo ama front loo yaqaana waddanka hogaaminaya. waxaa xisbiga markiisa hore maalidiis ka mid ahaa inuu u gudbo nidaam xisbi u gudbo uu ka gudbo nidaamka jabhadnimada ee frontiga uu ka gudbo. sidoo kale su-aasha badan ee dad xisbiga dahwadaadka ay soo jeedinayeen deegaanka Soomaalida ugu horreeya xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ee ahayd in ay xisbigan dahwadaadnimada ay ka baxaan talada dalkan ay ka mid noqdaan. daraasadda marka adduunka markii la tago waxaa la sugayay xisbi front ama intaas 20 sano ahaado jabhad ku salaysan oo dal hogaamiye haddana afar urur ka kooban inta kalena ay yihiin dahwadaad. marka waxaa la gartay inay midow tahay in hal xisbi la sameeyo. daraasadii la sameeyey oo loo soo bandhigay guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida talooyinkooda way ka dhigteen. muhiimadda daraasadka markaan soo koobno xurkan wuxuu ahaa inay muhiim tahay midowga in la midow hal xisbi qaran la sameeyo. qaabku dhaqan doono xisbiga qaabdhismeedku yeelan doono xeeroosaadkiisa iyo waxaana dib daraasaadka marka la sameeyo la wadaagi doono xubnaha golaha dhexe. guudaan golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida kulanka ay yeesheen wuxuu ahaa muhiimadda ay leedahay ka deegaan ahaan ka shacab ahaan in miiska talada dalka aan ka qayb galno waan u baahannahay. cidda aan la midoobeyna laakiin waa cid sidee ururkeen la midoobeyna makan daawataan la midoobeyna mise mid kale la midoobeyna. xisbiga EPRDF maadaama aan bahwadaag muddo badan soo ahayn inaan la midowno madanbaas mudan mahay golaha dhexe si fiican bay uga hadleen. shacabku waxaan u xaqiijiyo waxa ay golaha dhexe go-aamiyeen waxay ahayd in miiska talada dalka looga hayo oo Steve ugu dambeysay aan ka maqranay inaan fariisano waa muhiim xisbi ahaan waana naga go-an tahay. waxa aan ku midoobeyna laakiin wax danaha shacabka Soomaaliyeed dan u ah oo ah xuquuqda naga naqneyd ee miiska talada ka maqranay wax aan ku helin oo ku midoobi karnaa wey. marka shacabku xogaa waxaa muddaa bilaan jahawareer waa la ansixiyey. waxaa la ansixiyey waxaa miiska talada dalka lagu hayo waa inaan qayb ka noqonnaa. cidda aan la midoobeyna shuruudo bay golaha dhexe soo bandhigeen sidaan qoraalkayga kula wadaagay oo ugu horreysa xuquuqda ismaamul ay u madax banaan tahay deegaanka Soomaalida. laba luqadda af Soomaaliga inay ka mid noqoto luqadaha heer qaran. saddex qaab dhismeedkan xisbiga ee leedahay macal xubnaha in xisbigan cusub ay galayaan ayaan dad aan la baabi'inay meesha ka baxayn. qaab dhismeedka xisbiga cusub uu noqdo mid xisbiga qaabdhismeedkiisa uu ku wareeyo marka aan midoobeyn. midda afraad shacabka Soomaaliyeed xuquuqay ka maqnaa mid saacad u qeexay loo wada xisbiga cusub ee heer federal gaar ahaan naga maqnaa iyo in aan xaqiijino xuquuqda ismaamul ee u madax banaan si dhabatan shacabka deegaanka ugu goodo. waxaa la ogsoonyahay in federaalka waddanka ah haddana talooyin badan oo centerka ama ka imanayay heer federaal ay saameyn ku lahayd si taa looga baxa nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed inay talada u madax banaanadaan inaan xaqiijino in xuquuqdooda oo ku leenahay federaalka si cadaan oo cadaalad iyo hufnaan iyo sisteman inaan u helno in xisbi maadiida ay ka dhex muuqdaan aan la midoonin golaha dhexe go'aamiyey. talada xisbiga dimuqraadiga Soomaalida horta inuu la midoobo hay'adaha kala duwan xisbiga awoodey kan leeyihiin. guddiga fulinta golaha dhexena xisbiga inay baabiyaan awoodooda male. shirweynaha xisbiga iskala awoodda ugu sarreysa ee xisbiga wuxuuna shirweynaha go'aaminina tala ay golaha dhexe iyo guddiga go'aamin karaan ma jirto. xisbiga ay fahmaan shacabka u soo jeedinaya awoodda ugu sarreysa shirweynaha iskale. iyadoo taa tahay xisbiga maadaama aan bahwadaagnahay 20 aan soo soconay isku istiraatiijiyada qaar aan ka sameynay inay waxa aan kula midowno shuruudaha ay noqdaan ayuu golaha dhexe soo go'aamiyey. shuruudaha markay ka dhex muuqdaan barnaamijka siyaasadeed xisbiga u yeelanaya iyo xeeroosaadkiisana ka dhex muuqdaan ayuu golaha dhexe soo jeediyey.
barnaamijka siyaasadda ee xeerasaadka marka la sameeyana in dib lagu soo celinayo golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya ay ka doodaan kadibna haddii la isla garto oo lagu qanca shirweynaha awoodda shirweynaha loo gudbiyo marka waa process ama waa nidaamka saas ku soconaya shaqo socoto iyo shaqo dhamaatayna maaha shirarka nabadgelyada PRDF ka qaybgalin waxay in ay cadaato loo baahan yahay shirweynaha ugu dambeeya ee lagu galay magaalada Hawaasa waxay go'aamiyeen xisbiga PRDF inay midoobaan ururada dawladda ay ku martiqaadaan in midowga ay qayb ka noqdaan iyo awoodda malaha inay dhahaan nala midoobo waa martiqaadkay samayn karaan inay nala midoobaan hal xisbi noqon rabnaa maadaama su'aasha in badan ay ka yimaadeen xisbiga dawladda waxaa kale ay go'aamiyeen in xubnaha guddiga fulinta laba xubnood ay kaga qayb galaan labada xubnood cod malaan laakiin doodaha iyo dooda ay ka qayb ahaadaan siyaasadaha la fulinayo ay firkooda ka dhiibtaan ay xaaladda dalka la socdaan laba qof bay ka dhigan guddiga fulinta 5 qofna inay golaha dhexe ee PRDF ay ka qayb galaan oo ayagana ay halka ay kordhiyaan tirada ay kordhiyaan bay go'aamiyeen shirka guddiga fulinta waliba gudoomiyaha guddiga fulinta ka qayb galay kan golaha dhexe maanta ay shalay socdeen waxaa ka qayb galay 5 xubnood oo guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya maanta markaan kulanka ka qayb galnay waxaan soo jeedinay geedi socodkii waxa laga sheekeeyay midowga iyo daraasada la sameeyay xisbi kasta xaaladiisa yahay ama waa qaybteena ka qaadanay shuruudihii ay golaha dhexe soo dhigeen ayaan la wadaynay golaha dhexe PRDF waxaan ku cadaynay in shuruudaha ay u yihiin shuruudaha laga qaybgeli kara xisbiga qaran la sameeyay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin xuquuqooda iyo daro inay ka dhex muuqdaan xisbiga cusub ee la sameeyo waxay soo dhigeen baan yaan la wadaagnay waxay leedahay baan PRDF inay midowda ayaga maanta ugu wanaagsan inay midoobaan inay barnaamij siyaasadeed ay ka samaysteen PRDF aan wanaagsan annagu xisbi ahaan golaha dhexe guddi ayaa ansixin kara iyo in barnaamij siyaasadeed la qaato in midowga lagu biiriyo shirweynaha ansixin kara marka ansixinta PRDF kama dhigna mid guud ahaan macal xisbiga dawladda la ansixiyay PRDF xisbiga ma ansixinaan annagu goobjoog baan ka helnay maadaama dawladda wahaynay annagana xisbiga cusub la sameeyay fikirka aan ka qabnay inaan soo jeedino waa la wadaagnay barid waxa barnaamijka siyaasadeedna gaabta laga dooday marka barnaamijka laga dooday barnaamijka maanta waxaan annagana shuruudo ka mid ah in siyaasadda ay ka dhex muuqdaan in si sinaan iyo cadaalad iyo ka qaybgalka qowmiyadaha kala duwan ay si fiican ugu dhex muuqato xisbiga la sameeyay oo ay shacabka Soomaaliya ka mid yihiin si sinaan ay ku dhahanto looga qayb gala oo nidaam dimuqraadi oo ay xisbiga u yeesho siyaasadaha ay diyaarinayo dhaqaalaha iyo ku aadan ay ka dhex muuqato siyaasadda qusaysan nolosha xoolo dhaqatada si cad baa loo soo dhigay xoolo dhaqatada iyo wax soo saarka xoolaha in kor loo qaadayo macdanta iyo tamarta in kor loo qaadayo deegaanada dib u dhacay horumarka aan si siman loo faa'iideysan oo ka jireen deegaanada ay dib u dhaca ka jireen in ahmiyad mudnaan gaar ah la siinayo yaa ka mid ahaa barnaamijka siyaasadeed arrimaha dibadda in xoogga la saaro wadamada gaarka ah ee aan dowladka nahay in xoogga la saaro ayaa ka mid ahaa waxyaabo shacabka deegaankeena dan u ah barnaamij siyaasadeed ee maanta loo soo bandhigay way ka muuqdeen waxa ugu muhiimsan ee dooda biraha ka qaybgalaya waxa weeye xeerasaadka kaasi oo qeexaya awoodaha kala duwan iyo qalbisoodka xisbiga qeexaya biraha diilaha ka qaybgal doonaa waxa aan ku doonayno meesha aan kaga hadlayno waxa weeye shuruudihii golaha dhexe ay soo dhigeen oo ay san u tahay danta shacabka Soomaaliyeed inay ka dhex muuqato xisbigan xeerasaadkiisa barnaamij siyaasadeed ilaa hadda inta aan ka qaybgalnay doodaha ka qaybgalnay laba meel waxaan leenahay shuruudihii qayb ka mid ah waa ka dhex muuqdaan waa luqadda Soomaaliya inay ka mid tahay luqadaha heer qaran laga hadlayo iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbigan oo ay ka dhex muuqato siyaasadda waxtabada xoolo dhaqatada ay ka dhex muuqato halka ay siyaasadda hore ee barnaamijka PRDF cidda ugu halgamay waxay ahayd beeraleyda halka xisbigan uu leeyahay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada si isla waan ugu halgamaya iyo dad dhalinyarada shaqaaluhu oo xoog saaraya marka guud ahaan xisbigan cidda ugu halgamay siyaasadda dhaqaalaha waxyaabo shacabka Soomaaliyeed dan wax way ka dhex muuqdaan laakiin waxa muhiimka ah waxa weeye barnaamij waxaan gali doonaa dooda xeerasaadka wixii ka soo baxay shacabka la wadaagi doonaa in xeerasaadka iyo barnaamij siyaasadeed maanta aan ka soo doonayna waxa ka ku dhamaanaya maan waxaan soo celin doonaa golaha guddiga fulinta golaha xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya kadib hadii waxay loo baahday si weli lagu soo gudbin doonaa waxa lagu midoobay ama laga noqonayo ama lagu diidayna waxa salwa danta shacabka Soomaaliyeed adeer jineere arinta midowga xisbiga hadda lagu dhawaaqay
ma baabiinaysaa xisbiyada bahwadaagta ah haddii xisbi walba isaga danihiisa shacabkiisa waxay xuquuq shacabkiisa u raadinaya garanayo haddii lagu qanca hal xisbi buu dalka noqon doona laakiin xisbi walba oo bahwadaag lahaa iyo xisbi kastoo ka mid ahaa xisbi walba danaha iyo ciduu shacabka u halgamaya rabitaankeedu buu ku salaynaya arrinta midowgu injineere ma faa'iido ma u leedahay shacabka faa'iidadii hadda ka hor aan helay faa'iido ka badan ma ku heli karnaa waxa uu xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya golaha dhexe ay ku gurgurtamayaan waxaa weeye xuquuqda dastuuriga ee shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen in si dhab ah loo xaqiijiyo xuquuqaha kaga maqan federaalkan inay helaan labada arrin hadduu xisbiga fulinayo dambi u yahay shacabka goorma loo wadina marka xeeroosaadkiisa aan dhamayna barnaamijka siyaasadeed ee diyaariyada shacabka aan golaha dhexe guddiga la wadaagna haddii shacabka loo bandhigo lagu qanca kadib uu noqon doona laakiin waxaan isleeyahay haddii xuquuqihii ismaamul iyo xuquuqihii shacabka Soomaaliyeed kaga maqnaa federaalka uu siman u xaqiijinayo markaa maalikaa shacabka dambi u yahay dambi uma hadda waxaa doodii wada hadalkii qoraalada la akhriya ugu dambeynta waxa go-aanka lagu qaadanayo waxay wax shacabka dan u ah waxaan isleeyahay nidaamkan federalismka ee shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda Soomaalnimo ee xaqiijiyay jiritaankiisa in la xoojiyo umbaan xisbigan kula gurgurtamayna kaa haddii waxa kaa isaga gurgurtan ma galayo nidaamka xuquuqda ismaamulan leenahay inaan u madax banaanaano oo aan waxbana aan annaga tahay shacabkan yeeshada waxaan xooga saarayna xuquuqda federaalka aan ku leenahayna inaan helno labada markaan isku helno barnaamijyadiisa kala duwan ee xisbiga siyaasadihiisana ay noqdaan mid ka turjumaya danta shacabka Soomaaliyeed markaan baa liikaa shacabka dambi u yahay maadaama hadda qoraalada socdaan doodda ay socdaan fikradu kala duwan socdaan oo weli aan la gabagabeynin ma dhihi karno guud ahaan dambi iyo dan umaha annagu xeeroosaadka berri baan ka qaybgelina kaasaan ugu muhiimsan barnaamijka siyaasadeed waan aragnay xeeroosaadka berrita aragnay fikradeena ka dhiibana ee talooyinka aan dhiibana lagu soo daray kadib shacabkeena iyo taageerayaasha xisbiga golaha dhexe hay'adaha kala duwan la wadaagi doonaa markaan baa go-aanka ah inuu dambi iyo danana qaadan doono haddii la yarato markaa injineere ma jiraan kulamo aad yeelan doontaan golaha dhexe iyo shacabkaba oo aad ugu soo bandhigi doontaan arrintan midowga xisbiyada guud ahaan guddi fulyahaan baa markooda daraasaadkan baa waxaa lasoo dhigay hadda maadaama barnaamijka xeeroosaadka la diyaariyey ugu horreyn guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya ka doodi doona kadib golaha dhexe loo dhigi doona kadib aqoonyahanka iyo taageerayaasha xisbigana kulamo kala duwan baan u qaban doona haddii la yidhaahdo shacabka siyaabo kala duwan baa lagu wadaagi doona haddii la yidhaahdo haddii loo baahdo midowga aan ku qaracnay inuu xisbigan dan iyo shacabka Soomaaliyeedna kadib ay loo gudbi doonaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya